السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا وايد السلامي سو دوادا. عباد بان سوغيا صلاة بان لتكنيا قف بان مرتيا أو إمانا يان سوغيا مرتدا مرتي بان سوغيا إي إمانيسا إنay tukanaysana waa u malaynayaa laakiin meesha si gargaraaca dad badan ha soo galaani waxaan ka hadlaynaa arrin wacdi gelin waxaa cusub iskriinka gabadha ka muuqata arrin ay ka hadashay baa cusub oo wacdi gelin oo loo baahan yahay in la iska baraarujiyo arrintaasaa cusub oo la iska baraarujinaayo arrin waxay ka hadashay gabadhaas aad iyo aad u baahan la isaga baraarujiyo marka waxaan sugayaa marti gabar ii ah oo aan u malaynayo inay isku meel gabadha joogaan shuruucdaan fiirinaynaa iyo wixii ku saabsan iyo arrimahaas oo dhan iyo shuruucda Yurub sharciyada Yurub baan ka hadlaynaa maadaama gabadhaasna dadka soddon sano iyaduna la shaqaynaysa arrimaha bulshada gabadha aan sugaayo waa qof meesha ka shaqayso oo la shaqaysa systemka taqaana iyo waxaas Yurubna waa inta badan waa isku system oo systemkoodu waa isku dhow yihiin marka shaashada garaaca ayadii waan wacay hadda igama qabanaysa waxaan malaynaa maqrib bay tukanaysaa waan sugayaa wax yar arrinta waxay ku saabsan tahay haddaan wax yar idiin sii sheego shaashada idinkoo gargaraacaya please waxay ku saabsan tahay intaana afka furinin horta dad badan ha soo galaan shaashada garaaca sheer gareeyana waa idin mataqaanaa xeer isuga waa isku ogeyn inay gabadhi timaado marka ilaa iyadu ay soo dalbato timaado maqribkay tukanaysaa baan u malaynayaa inaan ka hor bilaabaan diidayaa ku soo celiyo marka saas ogaada inaanan rabin inaan ka hor bilaado gabadha markay soo gasho waxay yar isuga waxay soo dalbanay araadgata hay soo raadsanin where are you ku soco please waa ku soconayaa safur ku soco waa la suga waxay yar suga ku soco please kumalo ku soco please waxaan ugu soconaynaa u sugaya gabadha waddanka gabadhan joogto systemkiisa gabar taqaan baa ii imaanaysa inkastoo aan horey u weydiiyey ay isku systemka Yurub isku dhow yihiin waxaan ka hadlaynana waa wax bulshada dhan faa'iido u leh iyo waalidiinta dhan faa'iido u leh intooda badan marka wax yar baan sugaa haddii ay soo geli weysana waa ku socon doonaa waxa laga hadlaaya iskriinka ka gartaya ciwaankana waa ku qoran yahay telefoonka iskriinkiisaad ka garanaysaa waxa laga hadlaayo waaba iska caddahayba waxa laga hadlaaye wax yarna waxa waaye waa sugaysaan wax yar waan wacay gabadhii ma qabanayso way isku ogeyn inay soo gasho hadday soo geli weyso waan wadayaa hal mar baan ku celinaa telefoonka isuga mar baan telefoonka ku celinaa kale maqribkii baaba u soo galayba hadda waxaan malaynaya inay tukanayso aniga laftigeyga maqribkayga soo dhow yahay laakiin mushkilad ma leh waan iska tukanaynaa anako ku jirne iyadii baan wacaa hadda .
no ما qabanayso hadda ma qabanayso kowdhi haddaay gabadhan baa aniga layla soo wadaagay soo dhawaado horta waa idin salaamay magacayga Sahra waaye waxaan ahay qof ka shaqeysa arrimaha bulshada intiina aan aqoonin khaasatan maxaan ku dhahaa daryeelka nafta iyo tarbiyada ama maxaan ku dhahaa caruurta sida loola dhaqmo ama loo koriyo ayaa shaqadaydu tahay koorsooyin aan bixiyaa in badanna Soomaalida wacdigelin waa ku waday ilaa 2018kii Facebookga iyo YouTube-ka markaan arkay inay arrimahaas ka dayacan yihiin dadkan hadda soo baraarugo ka hadla qof ka hadli jiray ma jirin markaan shaqooyinkaas bilaabay alxamdulillah dad badanna waa igu daydeen waa soo dhaqaaqeen waa wacdigelinta ay dhinacooda ka bilaabeen wixii anigu aan aqaano aqoontayda ma taqaanaa kama hakrado dadka in badan baan fi sabilillah ku bixinayay dadka ila socda way og yihiin ma sha Allah dad badanna aad bay uga faa'iideystaan had iyo dan waxaan caawa u soo galay waxa waaye hadda ay gabadhan waan arkaa waxaan ku arkaa social media in badan baan meelo badan ku arkay inkastoo aniga maaragtay aysan ahayn dadka aan maaragtay fiirsado ama yacnihi I disagreed a lot of things she does waxay tahay backgroundkeeda ma aqaani laakiin mararka iyadoo hadlaysa aan arko ma jeclaysan runtii laakiin qof walbaba asaga ayay ku xiran tahay waxa asagu suu hadlaayo iyo suu u dhaqmaayo waa arrin asaga u gaar ah arrin aan judgmental ku ahay ama ku dhaleecaynayo ku cambaaraynayana ma jirto laakiin waan arkay gabadhan waa ku arkay social media wax badan baan ku arkay meesha especially TikTok-ga kilibkeeda ayaa hadaaya la iisoo diray iyada oo dhehayso waxaa iisoo qoray warqad iisoo qoray qof oo ah case worker oo aan muddo badan aqaanay qofkaas oo aan aad isu naqaanay oo muddo badan qof aan aqaano marka qofkii ayaa gabadhu waxay tiri dhakhtarnimaan bartaa emergency-ga meesha emergency-ga waana shaqeeyaa bay tiri inay tiraan u malaynaya waa shaqeeyaa dhakhtarnimona waa bartaa haddaan hadalkeedii baa ilaa kusoo celinaya gabadha marka waxay tiri gabadhu warqad baa qofkaasaan waxaan ku iri waad iska garanaysaan hooyo ilmana leh shaqaysa wax barataa runtii aad bay timeka ugu adag yahay marka waxay tiri qofkii baan u sheegay in maaragtay mararka qaarkood timeka ugu adag yahay anoo shaqaynaya anoo wax barta arrimo yacnihi ugu adag yihiin dabadeedna qofkii wuxuu sameeyey warqad buu qoray warqad dheer buu iga qoray waxaa ii timid warqad uu qofkii uu ku bixinayo talooyin iyo recommendation in gabadhayda la iga maaragtay reer loo geeyo oo reer hameenkii lala seexiyo la qaato la kixiyo reere loo geeyo intaan joogana aniga intaan shaqaynaya gabadhii reere loo geeyo yacnihi intaan yacnihi joogana haysto intaan maqnahayna reer loo geeyo arrintaa weeye arrinta aan ila soo taliya in aan yacnihi gabadhii aan jaamacaddii iyo waxbarashadii ka haro oo aan xirto iyo inaan maaragtay ogolaado inaan yacnihi reerka loo geeyo waa arrinta muhiimadeedu waa intaa horta marka arrinta soo guud maro marka aniga waxaan waaye aragnimadayda ila tahay iyo taladayda iyo waxa sharciga ay u leedahay ayaan iyo iyada kaliya maaha halkan waxaan u soo galay
digniin aan uga digayo waalidiinta xaquuqda waxay u leeyihiinna ay ku ogaanayaan iyo wax aan ku arko social mediahan waxbaan ku arkay qaldaad badan oo naaga Soomaaliyeed sameynayaan baan ku arkay oo khaasatan naagaha Yurub soo galay dhawaan ah oo aan aqoon u lahayn gaalada iyo dabeecadaheeda iyo sharciyadeeda iyo waxa qartar weyna ay ku sameynayaan oo dad badan ku xiran yihiin ha ku xirnaadaan mari habaabin ku sameynaya ama manipulation ku sameynaya ma aha gabdhaha Yurub ku dhashay way og yihiin qof Yurub ku dhashay ama ku koray ama wax badan joogay waa yaqaanaan dhaqanka reer galbeedka iyo maaragtay dhaqamadooda si fiican bay u yaqaanaan loogagama sheekaynayo waa yaqaanaan say isaga jiraan iyo say isaga ilaaliyaan dhibaatada waxa waaye dadkan cusub ilaa iyo dhowr iyo 10 sano dambe soo galay ama maxaan intaas soo galay ayaa dhibku ka taagay oo u maleynaya gaalkuba inuuba yahay ba wax oo maaragtay fiican in la dhex galo wax fiican u maleynaya in wax lagu darsado wax fiican waa arkaa ku halka sameeyay integration sameeya waxaaseeto dadaada marka arintaas waa arin aan rabay mar dhan ayadana inaan ka hadlo laakiin hadda tana u soo noqonaya tan waxaan ugu soo noqonaya waxa waaye shaashadaas idinka ku ekaadan garaaceeda si dad badan u gaarto waana idin salaamaya kulligiin horta case worker cidna ma yeelanayso had case worker qofku wuxuu ku yeelan karaa ama qof reerka la socdo wuxuu ku yeelan karaa haddii lagaaga shakiyay ama lagugu ogyahay inay jirtay dayac hore ama neglection child neglection u jiray jarmalkii ina waa soo wareystay meelahaas sharuucda Yurubna waa isku kaliya waxa reerka loo sameyn karaa oo qof la socon karaa marka looga shakiyo ama la arko shakigu ma aha inuu dilo ma aha inuu magiciyo laakiin neglection ku waxa waaye wuxuu noqon karaa dareenka wuxuu noqon karaa nadaafada wuxuu noqon karaa inuu qofku ka tagay magaciisi oo ilmihii oo laga maqan yahay la arko wax badan buu noqon karaa laakiin waxa waaye case worker qofku wuxuu yeelan karaa markii shaki jiro ama lagu ogyahay lagu ilaaliyo wadankan aan joogo waxa weeye waalidiin badan oo awood u lahayn ilmahooda inay si fiican u haystaan ama dhaqankooda iyo ilmaha behaviorkooda aan si fiican aan u sameyn kareynin ama maxaan ku dhahaa ilmihii yacnihi waxyaalihii badnaa oo baahidii ilmaha aan ka soo bixi karinin ilmaha saas dadkaas noocaasa dad waa la daba dhigo kula soconayaan case worker kalena ma jiro waa social worker-ka dadka daba socda dadka indhaha ku haaya aniga saaxiibtay waa social worker markii horeba xataa aniga inaan social worker barta waa rabay laakiin ilmahaas xanuuno badan oo dad ilmo laga qaaday marka arkay qalbigu waa isiin waay waa iska dhaaf laakiin aniga ma saaxiibtay ba oo social worker يعني marka waxa waaye midda kale dad social worker kow markaan jaamacada dhiganayo social worker oo dhan ba isla dhiganayno arrimaha bulshada waa la isla dhigtaa social science ka waxa la yiraahdo way isku wada xiran yahay dhow bay kala leexleexdaan child protection da waa waxaan kulligeeyo barano oo waxa weeye child protection ka waan bartay maalinka sanad kastana waa la cusboonaysiiyaan waan baranaa يعني marka waxa waaye ilmaha يعني marka saas ilmaha markii lagu la socdo ayaa maaragtay faragal imaan faragelin imaan kartaa in lagu yiraahdo yacnihi ninka wuu xanaaqay bay tiri hadda waxa ku jirtay hadalkeeda markaan diiday ninka wuu carooday aad buu u carooday waxaan ka digaya marka waxa waaye number 1 inaydan hortay cidna aaminin xataa case worker hadduu ku yahay xataa wax ku yahay gurigaaga iyo personalkaaga iyo reerkaaga waxa adiga ku ah maxaan ku dhahaa iyo ilmahaaga saad u dhaqaynaysid iyo saad u samaysanaysid ma aha inaad gaalada u furtid waa tiraahdo sidaan ahay xaggaana macnaheedu waxa weeyaan waa inaad ka aruursan tahay dadkan kow tan kale waxa weeye ilmaheeda inaad ilmahaagi markay ku yar yihiin ilmahaagu intuu iskuulka kuugu maqan yahay baad wax samaysan kartaa adigu hooyo ilmo yar hadaad leedahay cid kugu qasbaysa ma jirto inaad full time aad isku qortid
laakiin wax kasta waxa kaaga muhiimsan ilmahaaga maadaama ilmahaaga wax kasta kaaga muhiimsan yahay waxa la rabaa ilmahaaga inaad maaragtay ayaga horta priority-ga siisid oo wax ugu weyn ka dhigtid iyagii markaas aad mataqaano markay kaa jiraan iskuulka aad waxa qabsan kartid qabtid haddaa part time school aadaysid iyo haddaa part time shaqo aadaysid iyo waxa adigu waa inaad manage garaysataa maamulataa timekaaga aad ku shaqaysanaysid ilmahaagu ilaa iyo intuu ka gaarayo 15 16 yacnihii ilmahaagu iskama aad dhihi kartid okay full time baan qabaa ilmahaagu uma baahna keliya inay inta iskuulka aad geysid ay ka yimaadaan oo 10 markuu gaarto asaga guriga no ilmahaagi guriga waa inaad la soo horeysaa ilmahaagi waa inaad cunto u karisaa ilmahaagi adiga markaa guriga joogto adoo jooga uu ku arko ilmuhu uu ku farxaya so waa inaad ilmahaagi guriga u joogtaa ilmahaaga waxa ku dhacaaya iyo waxay mudanayaan iyo waxay la kulmayaan waa inaad ogtahay waa inaad ilmahaagi ma ahan kaliya inaad cunto siisid waa inaad la fariisataa waa inaad wax bartaa waa inaad u sheekaysaa waa inaad wareysataa waa inaad la ciyaartaa waa inaad la boodboodaa waa inaad geerta beerta geysaa waa inaad iskuulka markay ka yimaadaan aad time haysido ka bacdi aad tiraahdi xataa daqiiqado xataa banaanka idinku soo ciyaarsiinaya aad dhihi kartid ما laga hadlaayo gabadha yar inay hooyada jeceshahay of course way jeceshahay hooyada way jeceshahay laakiin waxa laga hadlaayaa dadka kale waa loo faa'iideynayaa gabadhana say sheegtay ninkay wax kasta u sheegato in loo sheegto ma anigu waxa weeye wacdi gelinteed waxa ku saabsan tahay gabadhan cidna ma dhicaleecaynayso uma baahna difaac halkaan iyo magaciisi ma fahamteen waxa laga hadlaayaa issue la iska difaac waxa waaye la iska wacdi gelinaya laga hadlaya Soomaali waxa waaye aniga dad qabyaaladu ma soo qaato waayo ma idin kala aqaan qabiilkiina ma aqaan qabiilkiina shaqo kuma lihi laakiin case markuu dhaco ama issue dhaco waxa muhiim ah in bulshada laga wacdi geliyo sayso qof dambe ugu dhicin oo qof dambe aadan waxaan arkaa naaga dhahaaya integration hala sameeyo isdhexgal yo adiga ma dhexgali kartid gaalada waayo muslim baa tahay waxa leedahay maxaan ku dhahaa value islam baa tahay qamre lama cabbi kartid daraagna lama qaadan kartid baababkana lama tagi kartid ya waxa soo dhan lama sameyn kartid anaga gaala la soo shaqeynay waligay miitinada qofka tagtaan ayada Soomaali tagini abidkay gaal baan ku soo dhex jiray laakiin waxa ka bixi kara qof adag oo yaqaan diintiisa oo yaqaan baaligiisa oo yaqaan qiimihiisa oo ah qof isku kalsoon oo af yaqaan oo wax iska daafici kara ya oo wanaagana ka qaadan kara gaalada xumaantoodana dhihi kara waa ku liidataan dhihi karo oo aan dhexgelin ayaa wadamadan iska celin kara laakiin hadaa dameeru dhaan raacda tahay oo aad dhahday oo ka gaaladan dhexgalaya integration bas no there's not something called integration يا واقف كانيتو no ما راعي there's not something called integration ما جرو waxaa jira inaad taqaanid value-gaaga inaad taqaanid dhaqankaaga inaad taqaanid cidda aad tahay inaad taqaanid inaad Soomaali muslima tahay inaad taqaanid sida ilmahaaga uga badbaadsatid daraagooda iyo alkoholkooda iyo waxooda laakiin afkooda baratid dhexgashid ogaatid waxa ay ku walaaqayaan iyo waxa ku qooshayaan aad la socotid laakiin intaan dhaho integration baan sameynaya lagu dhaho soo gaxan come on let's go to bab أترى هاي أنت كده بتنادي نين يا ناقو حتى لو يرادا باب واحد باب كده لسه دين تروح كتري you cannot go there ميسك حتى الخمر لو عباية ما في ما كنا هاي عنتها لعنين لكن أو يعني هي مركز وضع الشقين يسان كلني جاجا يدك جاجا هلا شقينين لكن ده وحواي يعني هي قال لما انترجريت جران كرتيد وإنا كإلى سطاع المهاجة hadduu ku ixtiraamayo waa inaad u sheegtaa markaa aftaqaanid isku filan tahay waa inaad u sheegtaa value-gaaga qiimahaaga diintaada waxaad aaminsan tahay ilmahaaga waxa aad ku korsid si aad u korisid kulli waa inaad u sheegtaa calooshaadana inaad u fogtid maaha calooshaada inaad u fogtid maaha ma waxa weeyaan dadka muslimiinta ah oo kaaga soo horeeyay dhulka way aysan u dhexgali waaye way
adigoo shalamaanta taataari soo raacay maxaan ku dhahaa magafe meeshaas ka yimid oo maxaan ku dhahaa kuwii doonta ay taaniga u bixiyeen doomaha soo raacay ah baa waxaad rabtaa gaalada inaad madax isugu tuurtid oo aad tidhaahda integration baan samaynaya oo waxaad oo maxaan ku dhahaa aad naftaada iyo carruurtaada aa halaagtid baa rabtaa no adduunku saa uma shaqeeyo adduunku waxa waaye calooshiina gaalada ha furinen marka u furtaan ay ku ogaadaan carruurta iyo meel kastay kugu dhacayaan waa kulli jaajuus kula wada jooga weeyaan just waxa waaye adiga ayay observation kugu samaynayaan waa ku eegayaan saa u dhaqantid waxay kugu eegayaan adoo Soomaaliya ku yimid oo dul lagugu soo koriyey oo cay lagugu soo koriyey oo dareenkaaga xataa la soconayaan dareenkaaga bal iska daa saa dareenkaaga la soconaya emotionalkaaga laga soconaya ilmihii maadaaba saa ula dhaqmaysidaa la soconaya adigii waxa waaye marka miyaa taqaanaa sida ilmaha emotionkooda loo sameeyo loola dhaqmo inta badan may dad yaqaana malaha way jiraan oo wax bartay oo book aqriyo wax aqriya laakiin inta badan may sidii Soomaaliya rabtaa wax u karsatid gaal baa gudaha soo gashatay waliba case worker ku ah ishu kugu haynaya oo for nothing gaal meel uma imaanay observation buu kugu haaya ha waxa weeyaan wadankan waxaa loola joogaa dhinacna lugta kaga jir dhinacna iskaga hay weligaa mataqaanaa ha u furfurin sirahaaga iyo waxaaga yacni marka waxa waaye gabadhan maxaan ku dhahaa anigu waxba ma dhahaayo arrimaheedan wax kale kalama socdo intaa yar baan arkay ilaahay ha u fududeeyo sharkoodana allaha ka xiro ayada haddaan ahaan lahaa aniga jaamacadayda waa xiran lahaa waxbarashadeeda xiran lahaa gabadhaydaan xoogga saari lahaa aniga intaas qofkii iyada yaqaanaana ha gaarsiiyo anigu ayada haddaan ahaan lahaa jaamacadayda xiran lahaa gaalkana waxaan ku dhihi lahaa cunugayga I will take care of it anaa cunugayga iyo shaqadayda iyo waxayga anaa isku habaysanaa waayo waxa weeyaan cunugeeda iyadaa dhashay shaqadeedana waxa weeye time bay u helaysaa bar timekeeda ha iska shaqaysato cunugeedana waxa waaye hadday rabtana jaamacadeeda bar time bay ka dhigan kartaa laakiin ma aha maxaan ku dhahaa inaad inta sirtaada u sheegtid warqad lagaa qoro gabadhaas way ku dhacday laakiin intiina kale waxaan u soo galay inaydan aydan gaal aaminin dadka gaalada ku dhex jiraan waa ogyihiin hal sheeko idinkaga tegayaa intaan gaal baa idin sheegaya hal sheeko baa idinkaga tegaya oo gabadhayda ku dhacday maalin dhawid gabadhayda waa gabar yar oo ku dhalatay Yurub Ingiriiska ku dhalatay wax ku baratay oo hadda maxaan ku dhahaa waxa waaye 28 san jir waa Ingiriiska ku dhalatay waxay ka shaqaysaa kambaniyada selka oo wax gala waaweyn bay ka shaqaysaa company weyn markay ka shaqo qayb la dhaho environmental sustainability company ah ayay u shaqo tagtay markay u shaqo tagtay waxaa la yiri 6 bilood oo waxaan ku siinaynaa waa gabar xijaaban waana gabar diinta aad u raacda marka waxaa la yiri waxaan ku siinaynaa 6 bilood oo training u fiirsadaya 6 months training baan ku siinaynaa waa la shaqaalay cadaan soocan laba naagood oo madow ah jooga ayaguna waa dameero dhaan raacdaas oo isla gaalayihiin hase hay baa lagu yiriyo waxay tiri hay baa inta la yiri waxay tiri gaalada bay isku nabnabeenba labadii naagood oo madmadooba ayadana isla gaaleen cadaankiiba isku nabnabeen cadaanka isla yihiin waxa dhacday marka gabadhaydii waxay tagtaa afar cishana online bay ku shaqaysaa hal maalin bay tagaysaa xafiiska maalinta ay tagaysaa xafiiska ayagoo dhan meel bay wada fariistaan horta may maalinta intaan taa la bilaabin maalinta xafiiska ay tagaysay baa waxaa lagu yiri waxay loo dareeray after shaqadii baa waxaa loo dareeray meeshii khamrida laga cabaayay baab baa la aaday baabkii markii la aaday baa iyadana gurigeeda iska soo aaday naagtii managerka ahayd baaba soo wacday xaggaad aaday gurigaygii baan aaday maxaa ku dhacay baabka maatimaadid baa la yiri ani baabka maxaan ka samaynayaa haddaa wax kala qabanaysaan oo activity aadaysaan oo casho la aadaayo diyaar baan u ahay inaan cashada idiin raaco laakiin baabka haddaa khamraha cabin baa la yiri waa inaad timaadaa may bay tiri diintayda ima ogola ma aadi karay waa loo guntay waxay tiri maalintaan taga arbacada kulli meel bay wada fadhiistaan cuntaday wada cunaan ayadiiba isolated laga dhiga meel baa gabadhiya tahay waxay ku gabadhiya soo hooyo ani gaalada ma jecel wallaahi hooyo waxa waaye isolated ba iga dhigeen kaligay baa meel fadhiya maalintaas dada ciidii dhaweyd bay waxay qaadataa fasax
ciidan anaka caadi waxaan noo ah inaan wada qadayno ciida reerkayaga maalinta kooba ciidii fasax markay qaadatay ciidii baa israacan niyadeeda waxaa kusoo dhacday shaqadana shaqo cusub bay ahayd dhowr bilood bay ka shaqeynaysa niyadeeda waxaa kusoo dhacday ow kuwii hadday jaanis waxay ka dhiganayaan hadda ayay jaanis waxay ka dhiganayaan yacnihii gabadhii maanta fasax bay qaadatay ciidii bay fasax u qaadatay waas ilaahay amarkii niyadayda kusoo dhacday markaan maalintii ku xigtay wallahi the second day waa loo yeer waxaa la yidhi we know inaad gabar fiican tahay waa ognahay sida inaad tahay maxaan ku dhahaa laakiin qofkaa experience badan markii horeba adigu ma aad ahayna sustainability environment adiga shaqo kuma aad lahayn qofkii baan heloo qaadanay oo maxaad markii hore ii tiraahday 6 bilood baa idin train garaynaynaa maya waa saas qofkaan qaadanay adiga naga raali ahow way soo wacdo hooyo saas waxaan ku yiri waan ogaa inay ku fasaxayaan laakiin rabbi subhanahu wa ta'ala wax ka khayr badan buu ku siinaya allah subhanahu wa ta'ala ka kaxeeyo you are lucky ilaahayna wax ka fiican buu ku siinaya baan ku yiri so waxa waa gaal waa kaas naagta dhehaysa saste integration كوي كنا شيء بإنتجريشن لا سمينه لا شقيناه أدو شلمانة أفريقيا كي يمدو دونتي صهر على ليبيا صمرة صهر فهذا عجوك قلق عدين بقى واحد بتاع قبلها يريد كهذا يمينه كده بيعيد يعني إنتجريشن لا سميه خمر ذا لعب قارب وضفار كلعنا محن كنا هميلا سكون دتشي no that's not the محن كنا the way things work stop وحاسيتو نايارة اسكا جنينا قبلها البح انترجريشن على قسيا لا هدا شو كاسه تجاره هذه خبرها لعبت قبلها حد باتay nin kale runta ay isu sheegno ya gabdhaha yar yar ka caruuraha haysta meesha jooga mental manipulation ya lagu sameeyno maskaxda laga qabsanay we know gaal wuxuu yahay anaga we know anaga muslimiinta yada halkan joogta qurbaha gaal caruurta yada iyo anaka waa naqaanaa waxay yihiin say u dhaqmaana waa naqaanaa mana dhex galo khamriyadoodii baababkoodana ma tagno mana cabno waxaan ku nahay baraawd aan ku faraxsanahay muslimnimada yadaan ku ma qof waa jira iska xumaaday oo marka xaqiiqdu waa taa حقيقة وحويان إنادن آبينين حقيقة وحويان إنا اسكتشفتت حقيقة وحويان إناد أدوغو تايم كاغا مانج جريستت حقيقة وحويان المهاجة إنا سيفي على الكرسيت أو المهاجة آد تايم أسميستت أو آد قف نول اسكتشفتت أو سلف ديرسبلين يعني مسؤولية والد قادة وارهم we don't have to be them yes aniga Somali baan ahay anigu Muslim baan ahay I'm proud inaan Islam ahay ilmahaygana valuega Islaamka aan ku koriyo u sheega cid ay yihiin ha salaf diirsaday yes marka yaan yacnihi la wareerinin dhalinyarada ku cusub qurbaha yaan dumarka qaarkood yaysan been u sheegin inta social media u soo galaan yaysan oqolol furtaan yaysan ku shubin maskaxdooda inay integration sameeyaan integration adoo muslim ma sameyn kartid I'm telling you unless aad gaalka wuxuu sameeyaa la sameeysid ilaahay wuxuu ku sheegay haddaadan ya iska dhihin qorsheen kaama daynayaan because wadada inay ka leexiyaan bay rabaan ilaahay baa quraankiisa kuugu sheegay gaal never leave you alone unless they wadada ka leexiyaan adiga marka wadada in lagaal ilaa ay ka leexiyaan ma ku daynayaan so waxa waaye sidaas darteed hal iska jiro maxaan ku dhahaa wax sirtiinana yaa loo sheeganin integration ha la sameynina laakiin fareen caadi waa la noqon karaa caruurtaada waa ku ilaalsan kartaa adigu kii ku xaq dhowrayaad xaq dhowraysa kii ku soo faragashadana waa iska qabanaysa qaar ku soo faragashanaya haddaad aragtid iska qabo waa inaad gad leedahay waa inaad calool leedahay I wish I knew you before. Yeah. Haddaan kuu sheegayaa it's not too late. Wax kastoo dhaca ogaada wax too late ama jiraan wax kasta waxay leeyihiin daba qabasho wax kasta waxay leeyihiin maxaan ku dhahaa qofku inuu wax ka bedelo
weligaa ha quusanin, never ha quusanin. nebiga weligaa ha dhihin maxaan ku dhahaa waxaas waa dhicin, ka daba tag wax kasta. ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuuna leeyahay? wuxuu leeyahay waxaan ugu jeclahay wax ilaahay wuxuu yiri waxaan ugu jeclahay adduunka qofka adoonkayga qadaaga oo dembiga gala haddana soo noqda. waayo ilaahay u jecel yahay qofka had iyo jeer repenting, had iyo jeer soo ilaahay u soo noqda. waayo waxa waaye qaldaadkan galno rabbi subxaanahu wa tacaala baa noo cafiyey. wax aan soo noqon karin, wax aanan sixi karinin ma jirto. Yes, صح. Always upload your own principle, because when you know yourself, أعدا تهاي أو أحب كتهاي أو أكو فرحسن تهاي أو محن كدها وحات تهاي قف قيمة كله الدونك إلهينا الثلاثة سارتين. لكن قفك قال ده وقال يا قال ده وحواي ما قفك أركان. هذا أنا قال على سوشقي والله بالله تالله مركان شرارك كقيب قالوا waxaa jirta meelo badan aan u tagay shaqo. Vienna aan u tagay, Austria, Holland baan u tagay, Jarmalka 3-4 times baan Berlin tagay aan ka shaqeynayay. intaa gaalaa la shaqeynayay. shirka markay ku jiraan miitinada oo tareerina waxa waaye saaka sagaalka la galaya, 5 laga baxaya. meel halkaas intaan istaago qaar muslimiin ah jooga xataa fadhiyo ma tukanaya. halkaas intaan istaaga Allahu Akbar gaalku ay firiyaan shiba iga dhaha. qaarna waxaan dhahaa meel aan ku tukaday siiya haraf waa ku ordaya dig dig dig. yacnihi ayaga laftirkooda markay ku arkaan inaad naftaada qiimeynaysid iyo diintaada ku qiimeynaa. adii laakiin haddaad qiime iska yar naag 80 kuwa 80 la dhaho mar dhaweedin ka tagaya salaadan rabaa inaad tukado maqrib. naag 80 kuwa oo aan waxba caabudsanayn baa ayaan noo yartay adiga hadda 2 years ago before 2019 kii bay ahayd. markaasay waxayna tiri ma idin weydiin karaa annagoo dhowr oo muslima ha. markaasay waxay tiri ma idin weydiin waay bay tiri sababta maxay tahay dadka muslimiinta ah ay qamriga iyo doofaarka u cunaayaan oo ay dadka kale ay waa nabxay tiri ifka waxaan ugu nabxay dadkan muslimiinta ah oo annaga raba inay dhaqanka iyo valuega isku soo dardaraan bay tiri intay ka soo tagaan diintoodii. يعني هي دت كان دت كان هو حبا من سنين أو دينته أو وحي ديمه يقدم يعني هي ديدي وحي كجف يعني هو قارك ديمه هايستا وحي هلا هاسو لو يواه تشكت الجريان ده أسوأ بإسلام كأسوأ جلا وايو وحي تري إف كان يقولوا عواقل ديهم بنكون عيد كستو بناء كان عيد قلد واكب وحده مركا قالكم مركا هذا يسقي مسيد بكو قيمين يا هذا أدوك يسقيمينه kuma qayminaya gaalku wuxuu ku fiican yahay ku xun yahay. they take advantage of you. markaad daciif tahay way ka faa'iideysanayaan. adiga waxay fiirsanayaan meesha u liidato saftiga ah u jilcsan tahay bay fiirsanayaan. sidaas waay gaal baa caawima iyo dambu kaale gaal danu kaale. I know inuu dan kaale meeqa aydiyada hadduu ugu yaraado fikirkaagu qaadanayo. waxaan oo dhan anaga idiin sheegay waxaan kulli waaye aragnimo u leeyahay oo kulligood ka arkay been idiin ma sheegay. hadda ka hor booliiska ay yimid waxay dhaheen waxa la shaqeynaya community Soomaaliya. marka booliiska noo yimaadeen waxay dhaheen guditaanka looga hortago dadka waa markay businesska hadda ka dhigteen guditaanka oo lacagaha badan ku qaataan looga hortaga haynaayo waa kaasay oo ma keentaan baan ku niri anaga dadka wacdi gelinayno maaragtay haya waa idin keenayna foonka idin keenayna. okay ship afkay xirteen. ayaantii dambe haddana waxa waaye waaba carruurtiina noo soo diray ship baan ka niri. ayaan dambe waxay igu tiri naag madow baa waxay igu tiri sahra wax ma ogtahay naag cadaan oo nin Algerian guursaday baa waxay tiri gaal la meeshii hunguri lacag shilin meeshuu ku og yahay inuu cid kala siiyo waaminka xalintiga asaga cunaay waaminka xalintiga inuu cid kala siiyo asaga waa giriidi gaalku hunguri asaga ma soo dhaafaan waxba bas ama ciduu wax u tuuro xoogaa calaqiya u tuurana waa ciduu dan ka leeyahay sheekada dhageysta. markaas waxay ku tiri naagti baa waxay tiri waa la guday naag weyn baa la gudaya Algeria inta tagtay xitirinkii qabay baa guday beenta day waxaanoo lacag iyadaa lagu shuba
هاي وايابو أنا أفكار كفله قال له كم غريه وحن كوير ساسات سميسانو نينكي أسكري جاها وحن كوير واي مالك استساس نلودها نين أنا عيرشوا سفي عرش يا كيسن ويحو يقول ما تقانا سهر بيري لعق مهليسين بيري إلى انتلكشن ليدن كهلو انتلكشن محوا إلى عدد كاغا سوفو فيات يا وجيف أند تيك هذا عدد كاغا روفياميني يا نو lacag saa ku helaysaa way yarta waa inaad wax rufiyaantaa waa inaad wargeysaa waa inaad war la orodaa markaa war la orod dadkaa lagu leeyahay lacaga badan bay ka helaan kulli war bay la ordayaan adiga iyo aniga warkeena wadaan wax kale ma ay ku helayaan marka haddaanan wax la ordayn gaal waa saas waxba ma dhicin waa sheekeynayaa wacdigelin baan bixinaynaa that's why they work. Yes. Runta wasas. Gas وين gas ما كليه information كده كلا جينيسا أيانتي حسن شيخ لدورتي أو هراء 2012 أيام حالة ير أو دولة ودن كان أنتوجا واحد ترى الصومالي community يدا واحد درينا ضد ودرينا وأمريكا حسن لندن لوجو ياري مركزي community كسته واحد درين ضد dad bay u direen ka socdo home office-ka wasaaradda arrimaha dibadda ka socdo baa loo diro xalay Soomaalida tala ka soo aruursada magaalada aan joogo baa loo soo diro kuwa waxa loo soo diray fak waxay dhahaan fak leedii bay dhahaan anigu waxba ma qarsado marka waxaan rabo ilaahay baa idilaaye fartaan wadnahan ku gooyaa gaalada shaqadayda ma walaah waxay noo soo direen niman ka socdiya naago wasaaradda arrimaha dibadda nin Soomaaliya oo Soomaalida madax u ahaa iyo naaga maxaan ku dhahaa dawladda hoose meeshan jooga waxa la yiri qabiilada dadka soo gudbay qabiilada dadka degan magaalada soo gudbay anagoo badan marka aniga iyo gabdho kale iyo niman Soomaaliyeed baa nala casumay waxaan la ku cusubay guriga dawladda hoose waa goor fiid ah waraaqa la isu qayqaybiye marka ninkan marka waan caawimaa Soomaalida madaxda anigu waan caawimaa bas waxaan dhacday warqadii markii la qayqaybinayay saas warqadii u fiiri waa la buuxaa Soomaali baa saa u buuxda dhinacaas gaaladii fadhida dhinacaan Soomaalidii baa fadhida halkaana Soomaali kaliya fadhida dhowr dumar aan ku nahay saddex ila inta kale rag bay u badan yihiin markaas waxa la yiri warqadii markaan fiiriyay baa waxaan ka qabiil hebel qabiil hebel qabiil hebel qabiil hebel qabiil hebel baa ugu badan meesha madaxi qac markii baa ma yiri gudub qac madaxi wallahi baan ku dhaartay ilmada ay soo dareertay been idin ma sheegay helilililililaq bay soo tir waan xeen gaaladii what is this baan ku ir what waa maxay waxan markaas halay maxaa dhacay ma wixii Soomaaliya aan uga soo cararay baan ku ir 1991 oo waddankaygii burburiyay oo halkaan aan u imid baad i hor keenteen caaw ilmada iga dareeraysa allah markaas inta gaaladii dhaxday raallaha hadaad qabiilada laga badan yahay qabiilada laga bahan yahay hadaata raalla qabiilada laga badan yahay hadaata now baan ku ir qabiilada laga badan yahay ma ahan kan la yiri waa ugu badan yihiin magaaladan baan baan ku ir laakiin baan ku ir maxaa ugu baahanay waa la igu qabiil muxuu ii daba socdaa waay sababta qabiilka la iga daba kuwi Soomaalida shit qof hadla oo Soomaali ah waa la waayay because waa wada guilt kulli waa wada rufyaan iyo guilt intooda badan shit ma fahamtay marka arrimuhu waa saas waxaan u soo galay cilba ahaayay gaalkan naagahan gaalada dhex gala darteeda u soo galay iyo gabadhan markaa arkay ninku wuxuu ku sameeyay ayaa waxa isiri barcaawa wacdi gelin waa inaad bixisaa yar oo aan leedahay Soomaaliya istire inta dhalinyarada qurbaha ku kortay ama ku dhalatana way fahmayaan they know this they know dhalinyarada waad artay booliska miyay aaminaan they know حبا ما دعين aad baa u mahadsantihiin
مقربك هذا مركل أيدي سوقها إن شاء الله هذا ما صون ما شاء الله all you are good وإذن شعل هاي لكن واحد ده هايو it comes from bottom of my heart قلبي جيجا أيو كإيمانا يا runta markaan idin sheegayo dhalinyarada English waxaan ugu daraa mararka qaar kood dhalinyarada say wallahiga ayaan Englishka ugu dhex daraa that's why inay macnaheedu mararka qaar kood fahmaan waxa aan ku hadlayo af Soomaaliga waaweyn aan aqoonin laakiin waxaan idin leeyahay waxa weeyaan be careful with waxaad samaynaysaa is ilaaliya cid kastana ha aaminina qurbaha idinko joogaan qaasatan caruurihiina waa important inaad ilaalsataan oo aydan aaminin aydan dhihinin mataqaana waa inaa cid hadaad actually aan rabtaan inaa wax weydiisataan adinkoon calooshiina fagin wax weydiista laakiin calooshiina ha faginina waxa adiga hadaa struggle samaynaysid oo kaleeto fiiri gabadhan waxay dhihi kareen haday daacad yihiin intaana ku daray daacad haduu ahaan lahaa ninkaas gabadhan wuxuu ku dhihi kari ya ilmaha qofku haya gabadhan child care bay xaq u leedahay wadankan anaga aan joogno child care xaq waxay leedahay ilmaheeda jaamacadda intay jirto inay haysato child care guriga ugu haayo gurigeeda ama qof ay taqaano intay soo raadsato oo ay ku kalsoon tahay ilmaheeda u haayo inta ay ka maqan tahay yacni intaas ku sibood gareyn kari laakiin ma uu rabo inuu sibood gareeyo in cunugteedii laga qaado reerag loo geeyo buu doonaya marka waxa weeyaan ha 70% they pay ha lacagta way bixinayaan marka waxa cad oo cadaan ah inaan la rabinin gabadhan in laga caawimo cunugteeda in lacagta laga bixiyo loo haayo ama iyadu I don't know inay wada Europe bay joogtaa inay aqoonta iyo ay taqaano ma garanayo child care bay xaq u leedahay حتى وحي سمين كرت إني حتى بقى إسكب بحسه وما بباهنا بقى إني يشوك شوكته سو إسكا إلالية تال كير باي حق وليدهين والمين اللي عقت لقب بحين هاي هدات شقي ستان أيضنكو إسكب بحية وقف هيدين هايو مركا وحان لاي هالا استيرو Anyway, I cannot tell you now what I'm talking about. I'm going now. I have to break. marka waxa waaye waxaan ka hadlayo ismaxaan ku dhahaa Soomaali hadaa tahay waad fahmi kartaa waxaan ka hadlayo so hadaa Soomaali ahayna the good luck maaragtay I cannot tell you more than that so thank you waa idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa idin jeclahay hameenku haydin macaado إن شاء الله خير بعد يدين رجينا يا كل جين السلام عليكم ورحمة الله